shantan branki waa shanta branki ee ugu shidan Soomaalida. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي السلامة وسعيد ما هنا وادي الله اسكسو نقد وناكسن إيه مقال كلو عصب. سو دواد مقال كين سيدا هردعة إيو إنتروغا أما هردعة إنترو أنت وكلو ذا. سيدا هردعة وقصو أركتين يتمنى الكبا waxa uu ku saabsan yahay muuqaalka wala socotiin waxa maanta ina ka hadlo waxyar intaan muuqaalkeenu ugu gudagalin asxaab badan oo commentiga ugu soo qoraan arkay gaar ahaan commentigan oo kaleeto kala bar muuqaalka yarkan waxa dhahay kala bar muuqaalka waa n macna n ada fahmin markii eri aado inta eri kale raadinayo ama hadalka kale intaan dhihin n asoo galiya meesha marka qof walba waxa jira wax oo la qabsi ah oo macna oo isticmaalo sida dadka qaar waxay isticmaalaan marka dadka qaar waxay isticmaalaan n dadka qaar waxay isticmaalaan qof walba waxba isticmaala marka ani eena isticmaala markii laba jumla xiriirnay markii uu qaato taasna wax weyn ma hadii inta jarjari karno wax ka jarjara boqolkiiba 90 muuqaalka en waaye boqolkiiba inta kale wax soo jira content soo fasaxa markii uu qaato waxa isku day hal muuqaalka soo socdo ina en dhan ku soo darin macna en dhan ina jooji okay muuqaalka maanta waxa rabaa ina uga hadlo shanta branki ee ugu shidan Soomaalida abid la sameeyay macna 1 ila 5 aadrin doona laakiin 5 ka soo bilaabi doona macnaheedu waxay tahay number 1 hoos u soo soconta number 1 branki ka soo gala branki ugu shidan Soomaalida ku soo branki number 5 aasi lahay best brank Somali number 5 aasi lahay top 5 ka soo dari lahay waa branki lagu sameeyay caato waxaan lagu sameeyay brankigaas Hargeysa marka Hargeysa oo caato joogay ayaa lagu sameeyay brankigan waxaan ku sameeyay Abdul Jamal iyo asxaab kale oo heshiiyeen marka branki wuxuu ahay meel maqaayada lagu bilaamiyay waxa loo diyaariyay dhajan oo xogaadi madaxasi ugu galmeena marka sheexa la wada dalbaday sida ka arki kartiin muuqaalka waa kana sheexa la wada dalbaday kadib marka sheexa la dalbaday boo isla markiiba ninkan madaxa inuu ka galo bilaabo marka ilaa heer laga xanaajiya la gaarsiiyo dhowr mar oo isku day inuu meesha ka kaco laakiin yarka abwaanka iyo waxa meesha ka celcelinayay Abdul Jamal marka brankigaas waxa dhigi karnaa oo ma listigan ugu soo darnay waxay tahay branki markii la dhahay waa in qorshe asmaysid in iska soo fadhiisa ama branki iska sameeya u samaysid ma branki wuxuu rabaa qorshe in aad dejisid taatiko wax aan la dareemeyn macnaha real life aad wadaagtid qofka marka brankigaas meel shaaxay ku balansadeen xataa kaamirada qofa wuxuu ka duubooyaa gaari kale oo laamiga geeskiisa kala yaalo xataa hadii la dhaho brankigaas waa macnaha scripted waaye waa la sameeyay ama waa la isla ogay hadii la dhaho xataa waa wax la qaadan kara macnaha dadka hadii aad soo script graysid xataa ama wax la ogyahay ama isla ogtiin soo sameeysid si dadka ay u qaadan karaan loo soo habeeyo macnaha si professional macnaha okay intaas aan gudubno branki koowaad waa ku dheeraaday sharaxadiisa number 4 waxa noogu jiro Warta entertainment dhalinyarada dhahayo oo Muqdisho branki ku sameeyaan waa dhalinyarada ugu horeysay oo Muqdisho branki ku sameeyay saani filayo ilaa 2018 sameeyeen 19 ilaa hadan way sameeyaan marka brankigan waxa sameeyay qadar mooha yar la dhahayo sidoo kaleeto waxa lagu sameeyay bila yar la dhahayo oo dadka channelkaas ugu furfuran ku jira macnaha marka waxay sameeyeen bila iyo qadar waxay ku soo heshiiyeen in branki la sameeynayo marka brankiga waxa lagu sameeyay isla bilaha naftirkiisa ugu sameeyo marka double branki ku sameeyeen macna brank on brank ida markaas oo kala gaalada ay English askari raadiyay ay ko brank balansan amid ay ka kamid brank lagu sii sameeyay marka brankiga waxa waaye buskoolad waa branki dumar buskoolad ee soo gashan waa another level oo noqona marka brankigaasna saasa waxa ku soo gelinay number 4 sababtoo ah waa branki laga soo shaqeeyaa dhigi kara oo waqti la geliyay oo xataa dhibaato sabab kara buskooladaas qofkaas soo la orda hadii qof kale askari oo arko qofkaas waxa waaye meesha lagu sameeynayo waa Muqdisho marka brankigaas riskiga ay u galeen iyo qaabka ay u soo agaasimeen waxa ku siinay number 4 number 3 waxa noogu jiro saaxiibkeen Qurux ku dhiigle number 3 waxa u soo gelinay waxa dhigi kara ani ahaan qofka brankiyada ugu fiican oo Soomaalida sameeyay macnaha waana ogaa doonaa dib aad kaga sheegi doonaa marka Qurux ku dhiigle brankigan wuxuu ku sameeyay Marish Beauty asigii Marish Beauty door brankis ku sameeyeen way ku sameeyna way ka arsanay way ka arsanaa way ka arsanay way ku sameeyna way ku sameeyna waxa waaye ay ka dhan wada branki ka dhigay meesha marka brankigan waxa waaye gaariga ku dhex bilamiyay marka gaarigana gadaal wuxuu soo saaray gabar kaleeto marka gabadha gadaalo iyo wuxuu gabadha gadaalo asal labadooda isla og marka Marisha brankigaas lagu sameeyay marka brankigan markii loo fiiriyo gabadha gadaal oo soo saaray sida brankiga real ugu muuqan karo waxyaabahaas oo dhan markii la isku dardaro brankigan waxa siin karnaa number 3 sidoo kaleeto
number 2 waxa siinayna Kamal Abdul brankigan wuxuu ku sameeyay yar asxaabtiisa kamid ah oo Muqdisho isla joogan marka yarkaas wuxuu ugu sameeyay branki hore ugu sameeyana jirto ay u heshiiyeen marka RC brankigan RC ahaan ku imaaday brankiga marka sida lagu sameeyay waa tana waxa la balansaday qof caadi ah oo macnaha oo barse asiga oo san aqoonin Muqdisho laga soo baxay waxa loo socday afgooye gaariga jidka waxa loo dhigay marka qof askari camal intuu iska dhigo jidka u galo jeebkii waxa u soo galiyeen waxyaabo aad muqaadaraad wax saas noocaas jeebkiisa u soo galiyeen asiga oo geenin marka waa lis baaray markii lis baaray ninkan waxa lagu arkay muqaadaraad macnaha marka draagisa lagu arkay adiga waa lagu lahara asxaabtan kale waa la fasaxa la marka si loo fiiriyo qaabkii uu soo agaasimeen meesha brankiga lagu sameeyay oo magaalada laga soo baxay magaalada kale wali aan la gaarin meel duur ah oo banaan ah lagu sameeyay gaari in la soo watay waa brank waqti oo gala dhigi karna macnaha oo laga soo shaqeey marka brankigaasna waxa siinay number 2 waxa waay number 2 anaga ahaan number 2 waa siinay top 5 Somali branks oo ku jira intaanan number 1 aan idin sheegin hadii aad channelka cusubtaa subscribe sar videogan like sar kulay waa ka heshaa ilaa intaan la soo gaartay commenting noogu soo qor branki ah ka tagnay hadii uu jiro oo aad isleedahay number 1 uu qalma ama top 5 in lagu soo daro uu qalma okay number 1 waxa ku jiro branki uu sameeyay saaxiibka Qurux ku dhiigle ama saaxiibkeen ba araan saaxiibkeen Qurux ku dhiigle marka brankigaas waxa lagu sameeyay Marish Beauty sida ay sheegaba si Marish is daba dhigteen maalin branki way ku sameeyay marka brankigan sida u dhacay waatana waxa la balamiyay Marish Beauty waxaana lagu balamiyay guriga Qurux ku dhiigle gurigiisa marka wuxuu ku sii diyaarsaday ama fadhigiisa wuxuu ku sii diyaarsaday afar nin mid sheekh oo ka dhigay kuwa kale marxaatiyaal oo ka dhigay wuxuu rabaa inuu mehersado Marish Beauty ayadana waxba lama ogo marka meesha la imaadabo arin meher uu bilaabay sheekh oo arinta noo dhameeyo iska soo jar qofti marka yaxyaxa u daarmay ayadana way jaha wareertay maxaa wax misku ogeeyay naaga soo heshiiseen ay khaldoosa iyo waxaas ay ka bixi waayay marka brankigaas waxa number 1 u siinay horta number 1 blanka qaabka wax u soo qorsheeyeen guriga lagu soo qorsheeyay qofka markii la keeno qofta markii meesha la keeno qofka kaliya ee ka taqaan waa Qurux ku dhiigle dadkan kale lama taqaano hadii youtuber meesha la keen lahaa waxay dhiileed branki muuqaal duuba camera ka shaqeeyay laakiin dad aan youtuber ahayn meesha la keen sadirteed ma bashaki kartaa oo shaki maxaa keenay shaki waxa keenay youtuber hadii meesha joogo hadii qof ay istaqaaniin oo joogo marka sidaas oo brankigaas wuxuu ku noqon karaa best Somali prank in this year ama maxaa Somali prankiyada hadirtaan la sameeyay kii ugu fiicnaa yani aan dhigi karo marka ilaa heer waxay gaartay gabadha aabaha waxa taa la dhaho si brankiga si meherka uu dhac macnaha aabaha yani hataa waa soo wada hadallo ku dhahay marka heer macnaha waxa dhigi kara brankigaas branki ka shidan waliba lama sameyn macnaha Somali ma sameyn marka Qurux ku dhiiglana waxa aan dhigi karaa brankiyo badan oo sameeyay waa daawaday adikan waa daawateen brankiyadiisa iyo brankiyada Soomaalida waxay kala duwan yihiin hatta hadii script oo ka dhigay macnaha wax oo la isla ogyahay ay ahaayeen waxa dhigi karnaa waa director fiican macnaha qaab fiican oo director gareey hadii ay isla ogyihiin waa macnaha aabadana way isla ogyihiin ma dareemi kartid natiir hadda aan maqnaay oo sharaq la soo geliyo adinka ahaan imise daqiiqo camal ah taban kaamirada ugu dantay 10 daqiiqo camal jaajar geli bateriga waa soo laabtay aniga ahaan shanta branki aniga aas dhigi karo waa brankiyada ugu fiican ama best Somali pranks ee la sameeyay waqtiyada ugu dambeeyay qaarkood sanadka hore soo gali karaan qaarna sanadka dambe inkastoo kuwana soo qaatay 2020 ee gudaheeda la sameeyay marka si kasta hata muuqaalkeen inta soo yahay waxa rajaynaana muuqaal ku raaxisteen inta muuqaalka ku xiga kulmi doono dhamaantii waxay tagayaa sidaas iyo nabadgelyo see you